بسم الله الرحمن الرحيم waxaan rabaa inaan ka hadlo ciyaaraha African Cup of Nation sida aan la socono African Cup of Nation waa ciyaaro dunida aad loo fiirsado aad loo yaqaan runtii waxaa la yiraahdaa waxaan soo diyaariyay ururka sportiga ciyaaraha Africa oo la magac soo gaabay loo yaqaan CAF waxay ka dhigan tahay Confederation African Football runtii waxaa madaxweynaha hadda Ahmed bin Yiraahdo Madagascar ciyaarahaas waxay soo bilaabmeen 1900 la bilaabay 17 xafiiska ugu weyn ee laga xukumo ciyaarahan African Cup of Nation waxaa ku yaala wadanka Egypt Masar ayuu ku yaala runtii 1957 ayaa ciyaar la bilaabay kooxii ugu horeeyay ciyaaraan waxaa lagu qabtay wadanka Suudaan ciyaarahaas waxaa qaaday wadanka Egypt ayaa qaaday runtii ciyaarahan African Cup of Nation labadii sano mar ayaa la qabtaa sanadkii 1959 waxaa lagu qabtay wadanka Egypt waxaana qaaday Egypt ayaa qaaday runtii sanadkiisa labadii sano kale kadib 1962 waxaa lagu qabtay Ethiopia waxaa qaaday sanadkaas Ethiopia halkaas waxaa kamidaysa kooxaha oo East Africa oo aan ka tirsanahay inay aad ugu fiicnaayeen bilowgii ciyaaraha African Cup of Nation runtii African Cup of Nation sanadkan waxaa isbedel ayaa ku dhacay oo runtii ah kooxaha waxaa la ciyaari jiray 16 koox waxaa laga dhigay sanadkan inay ciyaaraan 24 kooxood runtii waxaa kaloo isbedel yimid ciyaarihii runtii waxaa la ciyaari jiray Janaayo iyo Febraayo ayaa la ciyaari jiray weliba waxaa loo dhigay dib ayaa loo dhigay sanadkan samarka ayaa la gaarsiiyey sababta ah xilliga qorraxda soo baxda oo fiican oo dadka ay fasax ku maqan yihiin ciyaarahan laga ciyaaro Europe iyo Premier League laga ciyaaro oo fasaxyada lagu maqan yahay in la ciyaaro oo kooxaha ay ka qayliyaan runtii waxaa kaloo dib loogu dhigay sanadkan maadaama oo Ramadaan uu jiray saadiraadid kooxaha tiimkii ka qayb galay runtii oo ay codsaday in maadaama Ramadaan uu jiray dib loogu dhigo saadiraadid ayaa la soo gaarsiiyay June oo berita ah kullu dadka in lagu qabto ciyaarahan runtii Egypt ayaa lagu qabanaya beri bilaabay waxaa loo diyaariyay garoomo badan ayaa loo diyaariyay 6 garoon oo waaweyn oo magaalooyin waaweyn ku yaalo ayaa loo diyaariyay oo lagu qabanaya ciyaarahan African Cup of Nation kooxaha waa 24 kaas koox aan idin sheegay runtii haddii aad fiiriso Premier League iyo Champions League wadankan ciyaartoy fara badan oo ka ciyaaraysa African Cup of Nation runtii 48 ciyaartoy oo Britain ah oo wadankan Britain ka ciyaarta ayaa runtii ka ciyaaraysa ciyaaraha African Cup of Nation 26 ciyaartoy kamid ah waxay u ciyaaraan Premier League ee wadankan Ingiriiska runtii markaa fiiriso sanadihii hore sanadkan aad u duway waxaa ka garan kartaa kooxaha East Africa runtii oo aad iyo aad hadda u soo batay waxaa ciyaaraysa kooxda Kenya ka soo qayb gashay Tanzania ka soo qayb gashay Uganda ka soo qayb gashay waxaa ka soo qayb galay Madagascar oo Burundi ka soo qayb gashay Madagascar sidaa u tiin waa sanadkii ugu horeeyay ee ku soo qayb galaan koobkan African Cup of Nation waa aad iyo aad u fiican oo weyn anaga tarsanaa dambe anaga Soomaali ahaan inaan ka qayb galno ay u baahan tahay maadaama dalskiina oo dhan sanadkan ay ciyaarayaan runtii haddii aad fiiriso kooxaha oo groupka waa ilaa iyo 6 waaye gruubyada oo 4 ah 24 kaas ay team ay ka tirsan yihiin runtii aniga marka aan bir ahaan aan iraado kooxdee groupkee u arag waxaan dhihi karaa groupka Morocco iyo Ivory Coast iyo South Africa iyo Namibia haddii aan iraado kooxdee ugu fududna waa Tunisia iyo Mali iyo Mauritania iyo Angola kaas aniga ra'yigayga aan qabaa waa laga yaabaa dadka ay reer ra'yi duwan runtii ciyaarahan waa ciyaartoy fara badan ay ka soo baxaan runtii waxaa arkaysaa ciyaartoyga Algerian oo aad iyo aad qatar u ah Mahras runtii ku jira oo ciyaaraha Cup of Nation waa ciyaaraha Mohamed Salah waa ciyaaraha Keita waa Champions League nimankii qaaday Said Mane oo waliba ciyaarta ugu horeysa Senegal oo san ciyaarayeen oo ganaax ku jiro runtii sanadkan aad iyo aad waxaa arkaysaa Keita ciyaaraha waxaa arkaysaa ciyaartoygii Hakim oo ciyaaray Ajax oo waxda ka muujiyay Champions League ay ciyaaray runtii Awobi Arsenal haddii aad fiiriso dhinaca macalinimada sanadkan waxaa arkaysaa kooxdan la yiraahdo kooxda Egypt macalinka Jafet Guerrero ayaa macallin u ah kooxdan arkaysa Cameroon Seedorf ayaa macallin u ah kooxda South Africa macallin oo Britain ah oo Ingiriis ayaa macallin u ah marka runtii sanadkan aad iyo aad waa sanad aad iyo aad muhiim u ah ciyaartoy aad iyo aad adduunyada ka ciyaarto fara badan oo ay ka qayb galaan waa ay kamid yihiin sanadkan laakiin runtii waan arkaynaa hadii ilaahay insha Allah guushiisa ku dhamato